بسم الله maanta waxaan xalinaynaa haduu Ilaahay yiraahdo example-ka chapter-ka labaad kiisa 14aad ayaan xalinaynaa oo ah quadratic equation waxaana la yiri solve xaliya equation-kan xaliya ah x laba jibaaran minus 4x plus 5 is equal to 0 dabcan isla tan waa isla quadratic-ga xaliya ayaan la yiri waxaan ku xalinaynaa marka by formula ayaan ku xalinaynaa waayahay marka koowaad isla egtaan xalinayna waa x laba jibaaran minus 4x plus 5 is equal to 0 ayaan xalinaynaa isla egta quadratic-ga waxaa la yiraahdaa formkeeda ama qaabkeeda wuxuu u dhigmayaa ax squared plus bx plus c taasoo macnaheedu tahay mar walba xarafka laba jibaaran hawlgalihiisa waxaa loo yaqaanaa a xarafka keligiisa ayaan laba jibaarka wadan hawlgalihiisa waxaa loo yaqaanaa b numberka constantiga ah ee aan wax xaraf wadan asagana waxaa loo yaqaanaa c hada dabcan x laba jibaaran hawlgalo ma lahan ergolaheeda markuu u qarsoon markuu wuxuu noqonayaa hal that means marka a waxay la mid tahay hal ayaan oranaynaa sidoo kale b ayadana waxay la mid tahay oranaynaa minus 4 ilaa waa hawlgalo xarafka x sidoo kale waxaan oranaynaa c ama constantiga maanta wuxuu la mid yahay number 5 ayuu la mid yahay now hadda waxaan soo qaadanaynaa isla egta quadratic-ga by formuladii ama qaacidadii lagu xalinayo waxaa la yiraahdaa x oo xarafka qiimihiisa la raadinayo ah wuxuu la mid yahay la yiraahdaa minus b plus or minus square root of b squared minus 4ac all divided by 2a formuladaas ayaa lagu soo saaray halkii b qiimeed aan u jeedinay minus 4 tahay a 1y c na 5y okay hada marka waxa dhahaynaa x waxay la ekaanay hadaba minus qaacidadu kamid yahay waa la qorayaa bracket aan furayaa b bosskeeda waxaan ku bedelanayaa oo ay la eg tahay minus 4 idin maxaan oranaynaa plus or minus aan oranaynaa square root ka meesha ayuu yaalaa asagana bosska b waxaan ku bedelanaynaa minus 4 waan isku gargareynaa maadaama b-da isku gargareysan tahay laga jaray 4 oo ku dhacsanayaan oranaynaa a bosskeeda waxaan ku bedelanaynaa 1 halka c bosskeeda ayadana aan ku bedelanayno 5 kid waxaan dhahaynaa loo wada qaybsay 2 oo ku dhacsan bosska a waa 1 okay now hadda marka waxaan dhahaynaa x waxay hadaba noole eg tahay minuskan markuu minus 4 ku dhaco wuxuu noqonayaa 4 oo plus ayuu noqonayaa kadib waxaan dhahaynaa plus or minus square root of minus 4 hadaan isku gargareeno waxaa soo baxay 16 oo plus ah minus 4 markaa 1 ku dhufatid minus 4 la soo laabanaa hadaa 5 ku dhufatidna waxay noqonaysaa minus 20 kadib waxaan oo dhan waxaan wada qaybinaynaa 2 lagu dhufta hal oo ah 2 now hadda marka waxaan dhahaynaa x waxay leegtaa 4 oo marna lagu daraa marna laga jaraa radical 16 minus 20 divided by 2 ayay la mid tahay ayaan oranaynaa okay hadda marka waxaan dhahaynaa marka x waxay la ekaanaysaa 4 oo lagu daraayo ama laga jaraayo radical 16 20 hadii laga jaro 16 oo tiro yar ah 20 weyn laga jaraaya dabcan waxaa soo baxayso 4 laakiin 4 taasoo 4 oo minus ah tirada 20 ka ilaa maadaama minus ay wadato kadib waxaan dhahaynaa loo qaybsay 2 ayaan u qaybinaynaa hadda marka waxaan dhahaynaa x waxay noola eg tahay 4 oo marna lagu daraayo marna laga jaraayo minus 4 markii radicalka laga saarayo waliba square root laga saarayo 4ta square root-ka waxay uga baxaysaa oo kaliyeeda 2 laakiin tirada minuskan oo radicalka ku jiro asagana wuxuu radicalka uga baxayaa ama minus oo radical ku jiro wuxuu noqonayaa i marka ayadan radicalkan minus 1 minus radical minus ay noqonaysaa 4 marka radical ka saarana waxa soo baxayo 2 4 radical marka saar 2 soo baxayso radical minus na wuxuu noqonayaa asagana ay ayuu noqonayaa dhammaan waxaanu idil waxa wada qaybsan 2 naad waxaan dhahaynaa si aan x qiimeedu helno labada meel walba u qaybi oo 4 loo qaybshay 2 noqonay plus or minus 2i oo iyadana loo qaybinayo 2 labadii waa loo kala qaybiyay naad marka waxaan dhahaynaa x waxay leegtahay 4 hadii 2 loo qaybiyo 2 soo baxayso plus or minus iska joogaysaa 2 iyo 2 isla baxayo waxa soo harayo kaliya i oo kaliya ayaa soo harayso that means marka x waxay la mid tahay
2 plus or minus I. haddaa rabto jawaabta waa kala saari kartaa, waxaa dhigi kartaa x-ta koowaad waxay la mid tahay 2 lagu daray I, comma sidoo kale x-ta labaadna waxay la eg tahay dhigi kartaa 2 laga jaray I. That's the exact answer ama answerka ama jawaabta ugu dambeeyo sidaas ayuu noqon doonaa. guud ahaanna shaqadii aan soo qabanay waa taa ilaa iyo aan kasoo gaarnay meesha ugu dambeysa oo ah x-ta koowaad inay la mid tahay 2 plus I, x-ta kalena inay la mid tahay 2 minus I.